magaalada Wardheer oo ah xarunta gobolka Doolo waxaa ka socda wacyigelin ku saabsan ka hortagga caabuqa COVID-19 kaas oo la siinayo hogaaminta kala duwan ee xaafadaha magaalada Wardheer. Wacyigelintan oo uu soo diyaariyay xafiiska dowladda hoose ee magaalada Wardheer waxaa ka soo qayb galay hogaaminta kala duwan ee afarta xaafadood waxayna ku qaadanayeen cashiro la xiriira habka ugu habboon ee looga hortagi karo loona xakamin karo khatarta caafimaad ahaan ee caabuqa COVID-19 ama coronavirus si hogaamintani ugu sii dhaadhiciyaan cashiradan caafimaad ee ay qaateen dhammaan bulshada ku dhaqan xaafadaha magaalada Wardheer. Abshir Cabdi Sagal waa duqa xafiiska dowladda hoose magaalada Wardheer waxa uu ka warbixinayaa hawlaha shaqo ee ka hortagga caabuqa COVID-19 ee magaalada Wardheer. Sadarkii maanta waxaan bilownay wacyigelintii afarta xaafadood degmada Wardheer waxay ka afar xaafadood ka kooban tahay. maanta waxaan bilownay wacyigelintii afarta xaafadood ee degmada Wardheer. waxaan kaloo bilownay waxaan dhaadhinay qorsheyn soo siiyay wasaaradda caafimaadka inuu soo siman dhaadhinay. waxaan kaloo maanta aan bilownay kala fogaanshihii toddobaadka hore waxaan bilownay farxalkii insha Allah hawsha si fiican bay noogu socotaa. maanta meesha waxaan isku keenay hogaamintii afarta xaafadood iyo guddi hoosaadadii si loogu soo dhaadhiciyo ilaa iyo xaafadaha iyo santarada magaalada loogu soo dhaadhiciyeen qabalay hoosaadada. Gudoomiyaasha xaafadaha magaalada Wardheer ayaa dhinacooda ballan qaaday in cashirada ay qaateen ee ku saabsan wacyigelinta iyo ka hortagga caabuqa COVID-19 in ay sii gaarsiinayaan bulshada xaafadaha magaalada Wardheer. saaka nadaafadii baan ka shaqeynay farxashkii dadka meherad walba inaan farxalkii sudhno meherad walba inaan wacyigelino xaafadii inaan hoos u dhaadhacno wacyigelino dhammaantana maanta aad baan shaqadaas noogu qabsoontay la qaadana inaanu sii wadno sii dhaadhicino hoos u sii dhaadhicin ilaa santar hoosaadada qabalada hoosaadada dhammaanto inaan gaarno oo sii dhaadhicino marka aan shaqada wadno muddo week aan ka nasanin labada gelinba habeen iyo maalin aanu sii wadno. saaka halkan waxaan isugu nimid wacyigelintii xanuunka la yiraahdo ama cudurka la yiraahdo coronavirus waxaan nalagu wacyigeliyay xanuunka la yiraahdo coronavirus iyo waxyaalaha maartay lagu kala qaado iyo waxyaalaha la yiraahdo la iska ilaaliyo iyo nidaamka la yiraahdo loo fariisto intaba ka bacdi waan sii dhaadhicino qabaliyada sii dhaadhicinay waxaan dadkii ku wacyigelinay in dadku kala fogaado oo meelo kala duwan kala fariisto mitraad iyo wax soo jirsado inuu maartay faraxal joogta ah sameeyo oo goobaha guryaha ama maartay lagu ganacsanayo ama lagu shaqeysanayo ama maartay dukaamada xataa hortooda waxaan ka sameynay meelo faraxal oo maartay saabuntu iska dul saaran tahay oo badna hawlihii shaqo dhamaantood dadku waxaan u sheegnay kale inaan aad la soo salaamin oo maartay dadku maartay korkaas ka salaamo salaanta yareeyadii marka waan wadnaa shaqadii haddii ilaahay ma waan sii wadaynaa ilaahayna maartay xanuunkana nooga saaro inuu soo gaarsiin baan leenahay. waxaan u ballan qaadnay dhammaan horta ka guri nadaafadda horta iyo wacyigelinta inaan u gaarsiino kow qashinaha degmada Wardheer iyo qabalaha saddexaad ee ka sii shaqeeya gaar ahaan saaka hadda oo ka meel kasto meherada iyo meel kasto meherada waxaan u diyaarinay goobihii farxalka hadday tahay xafiisyada hadda xafiiska qabalaha saddexaad hortiisan ku xidhay meel kasto meherada cuntada farxalkii baa lagu diyaariyay saabuuntii bulshada kale inay kala fogaato oo maaragtay si kala leexsan bulshada maaragtaa sidaasna wacyigelinta u gaarsiinay ka xaafad in la ilaaliyo bulshada shirar inaan la qabanin isku meel ilaa iyo iskuuladii waa laga fasaxay maaragtaa isagoo la ilaalinayo maaragtaa caafimaadka ilaahayna aan tala saaranayno. magaalada Wardheer oo ah xarunta gobolka Doolo waxaa ka socda wacyigelin ballaaran oo bulshada laga siinayo ka hortagga caabuqa COVID-19 iyada oo la gaarsiiyay wacyigelintan guri goob kastana lagu diyaariyay agabkii farxalka oo qayb ka ah ilaalinta caafimaadka shakhsiga. Maxamed Cabdi Cali Maxamed Garbo oo kala warbaahinta deegaanka Soomaalida xarunta gobolka Doolo Wardheer.